Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada dhammaan inta channelkan ku xiran. Maanta muuqaalka aan idiin sido wuxuu ku saabsan yahay ama aan idiin sido waa tutorial yar oo aan idinkugu sharaxi doono hab fudud oo aad ku hagaajisan karto sawiradaada adigoo kaliya isticmaalayo application la yiraahdo Lightroom. Sidoo ogtihiin telefoonada Samsung laguma keeno wax idida sida iPhone oo kale, balse aniga hadda waxaan idahayaa sir yar ama qaab yar oo aad sawiradaada ugu hagaajisan karto Lightroom. Haddaba ila joog ilaa dhamaadka muuqaalka haddii aad jeceshahay inaad sawiradaada qurxisato walibana qaab professional ah. Haddii aad channelkan wali subscribe saarin waxaan si xushmad leh kaga codsanayaa inaad channelkan subscribe saarato, gambalelkan haddii aad furato waxaa kusoo gaari doono muuqaal walbo oo aan halkan soo geliyo walibana dhanka tiknoolajiyada. Haddaba haddii aan u guda galno muuqaalkeena maanta, markii aad sawirka soo degsato oo aad marka hore aan dhahay marka aad application-ka soo degsato oo aad gudaha usoo gasho interviews ama qaybta ugu horeysa oo ku tusi doono sidan ay u ekaan doontaa. Hadda anaga sawirka aan rabno inaan edit gareysano qaybtan all photos ayuu noogu jiraa, qaybtan ayuu noogu jiraa, balse marka aad rabto inaad sawir kusoo darto halkan aad ku dhufanaysaa, kabacdi waxaad tagaysaa wuxuu ku geyn doonaa galleryda mobile-kaaga. Kabacdi waxaa soo choose gareysan doontaa sawirka aad rabto inaad edit gareysato. Haddaba anaga sawirka aan rabno inaan edit gareyno halkan ayaa haddaba noogu jiraa oo halkan ayuu noogu soo jiray markii horeba. Halkan ayuu noogu soo jiray sida wada jeedaan. Marka halka hadda aan u guda galno sawir hagaajintii ama aan u guda galno habkii ama tutorial-kii yara kaga hay. Marka hore waxaad raadinaysaa qaybtan halkan aad ku dhufanaysaa profiles ayaa la yiraahdaa. Profileskaas marka aad ku dhufato waxaad raadinaysaa artistic 4 ayaa ku dhufanaysaa. Artistic 4 marka aad ku dhufato sida wada jeedaan sawirka marka hore sidan ayuu ahaa, balse markaan artistic 4 doortay before ay hadda ku qoran sidoo markii hore artistic 4 markaan doortay sidan ayuu noqday. haddaba halkan tigta aad ku dhufanaysaa marka artistic 4 ku dhufato waa soo noqonaysaa oo haddana waxaad ku dhufanaysaa qaybtan ayaad ku dhufanaysaa. qaybtan calaamadda loogada qoraxda oo kale ayaad ku dhufanaysaa. marka aad ku dhufato exposure-ka ma taabanaysid oo contrast-ka ayaad -100 geynaysaa. -100 marka aad geyso haddana highlight-ka ayaa waxaad geyn doontaa -100 haddana highlight-ka asagana geyn doontaa. shadow-ga asagana waxaad geyn doontaa plus asaga hore plus 100 asagana geynaysaa. halka white-ka aad keenaysaa halka white-ka waxaad ka dhigaysaa -100 asagana ka dhigaysaa. marka -100 sidan ka dhigto qaybtan black-ga ayaa kusoo haray, white-ka oo bahan -100 ka dhigtay, black-iska waxaad ka dhigaysaa 18 aad ka dhigaysaa. halkan -18 aad ka dhigaysaa -18 aad ka dhigaysaa. halkan -18 markii aad ka dhigto qaybtan kore sida halkan ugu jiraan curve ayaa ku qoran. curves waa curveska ma curve aad ku dhufanaysaa, kabacdi waxaad ku jooggareysanaysaa sida ugu jeedaan waa cadaan iyo guduud, cagaar iyo buluug waaye. waxaa ka dooranaysaa cadaanka aad jooggareysanaysaa, kabacdi aan wada daawano sidaan ka dhigo. curveska ayaa sidan ka dhigaysaa. curveska markaa sidan ka dhigto daan ayaa dhahaysaa. hadda sidaad u wada jeedaan sawirka siduu markii hore ahaa iyo siduu haddii yahay waa curve iyo kala dheeri. kabacdi waxaad imaanaysaa qaybtan ka hooseysa qoraxda, calaamadda qoraxda ka hooseysa ayaad imaanaysaa ku dhufanaysaa. marka aad ku dhufato waxaad kasii dooranaysaa qaybtan aad kasii dooranaysaa. qaybtan marka aad kasii doorato waxaad kasii dooranaysaa qaybtan marka aad kasii doorato waxaad kasii dooranaysaa qaybtan aad ku dhufanaysaa. qaybtan marka ku dhufato kabacdi highlight-ka sidan ayuu ku keenaya. highlight-ku ma soo bixinayo, highlight marka uu ku soo bixin highlight-ka naftirkiisa aad ku dhufanaysaa. kabacdi highlight-kan waxaad ka dhigaysaa 200 iyo waxaad ka dhigaysaa iyo 29 ayaad ka dhigaysaa. 229 aan ka dhigno 229. marka aad ka dhigto halkan saturation-kana waxaad ka dhigaysaa 15 ayaad ka dhigaysaa. saturation-ka halkan 15 ayaad ka dhigaysaa.
tobanation ayaad ka dhigaysaa halkan saturation marka tobanation ka dhigto kabacdi luminance waad kasoo boodaysaa blending ayaad waxaad ka dhigaysaa minus 100 ayaad ka dhigaysaa 0 ayaad keenaysaa marka 0 keento sidan ayaad u jeedaan kabacdi waxaad dhahaysaa done ayaad dhahaysaa oo halkan waad iskaga soo laabanaysaa done markii aad dhahdo halkan color mixing ayaad ku dhufanaysaa qaybta kale colorka ayaad ku dhufanaysaa inta aanan colorkaas gaarin qaybtan sidaad u jeedaan kalaga ayaad vibrancy-gan waxaad ka dhigaysaa -8 ayaad vibrancy-gan ka dhigaysaa -8 +8 aan dhahay +8 markaa ka dhigto qaybtanna waxaad ka dhigaysaa -18 ayaad qaybtanna ka dhigaysaa oo gadaal ayaad soo celinaysaa waxaad ka dhigaysaa -18 ayaad ka dhigaysaa -18 maaha waxaad ka dhigaysaa -10 saturation kan ayaad waxaad ka dhigaysaa -10 waa isku mid kabacdi waxaad ku dhufanaysaa qaybtan kalarada ayaad ku dhufanaysaa kabacdi waxaad imaanaysaa kalarkan ay ku qoran tahay orange-gan ayaad imaanaysaa orange-ga markaad imaado huwada kore ma taabanaysid oo saturation-kan ayaad waxaad ka dhigaysaa -10 ayaad isagana ka dhigaysaa -10 aan ka dhigno -10 marka aad ka dhigto asagana luminance-gana waxaad ka dhigaysaa +1 +10 ayaad ka dhigaysaa asagana +10 marka aad ka dhigto haddaba aan usoo noqono dhanka aan dhahe -10 ayaad isagana ka dhigaysaa luminance-gana -10 ayaad ka dhigaysaa luminance-gana -10 ayaad ka dhigaysaa haddaba aan usoo haddana u imaadno yellowga ama u imaadno yellowga huga waxaad ka dhigaysaa -1 ayaad ka dhigaysaa -10 -1 ayaad ka dhigaysaa oo hal ayaad dooranaysaa kaliya -1 -2 iska dheh marka -2 dhahdo kabacdi haddana wax kale masii dooranaysid oo waxaad imaanaysaa cagaarka marka aad imaado hugo waxaad ka dhiganaysaa +45 ayaad ka dhiganaysaa +45 markaa ka dhigato daan aad dhehaysaa kabacdi markaa daan dhahdo qaybtan waxaad imaanaysaa qaybta halkan ay ku qoran tahay effects ayaad imaanaysaa effects markaad imaato clarity-gan waxaad ka dhiganaysaa 50 ayaad ka dhiganaysaa clarity-ga 50 ayaad ka dhiganaysaa clarity-gan 51 iska dheh clarity-ga markaa ka dhigato 51 halkan waxaad ka dhiganaysaa 8 hadda sidaa u wada jeedaan sawirkii markii hore sidan ayuu ahaa haddana sidan ayuu noqday oo wuxuu noqday sawir soo jiidasho leh haddaba haddii uu channelkan sidaan u dhiidgeliyay sawirka haddii uu ku cajabiyey oo aad wax ka faa'iiday ama aad isdhahday sawirkan si cajaayib ayaa loo hagaajiyey dhanka commentiga igu reeb wixii dhiirigelin ah haddii aad channelka cusub tahayna subscribe saaro oo gambaleelkana furo si ay kusoo gaaraan muuqaal walbo oo aan halkan kusoo gudbiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu